وزير فقه wuxuu sheegay in ay yuhuud maatiin ay gaari doonto hawshu hadii ay siyaasadda mucaaradku inay awood isticmaalaan wali mar adiga ku soo hadal qaaday wuxuu ugu sheegay in aan fadhin muxuu ka wada hadda waa taagnay xagee yani wuxuu yiri maskaxiyan in aan joogin waa sababta xataa wasiirka lagu magacaabo duray may horta waxa fiicnaan lahayd aniga iyo fiqi inaad doodna keentaan hadii uu yahay markaas ogaan lahaydeen qofka aniga jawaabteedu waa intaas hadda idinku anaga xubnihii madasha intii joogto waa taqaaniin inta kalena meeshay jiraan waa taqaanaa adigu iyaga weydii su'aasha ugu horeysa oo yarka wariyaha ku weydiiyay jawaabta waxa ku jirtay in madaxweynuhu intiin hadda madasha isugu soo hartay oo idin gada waayay marka ma waxay ka dhigan tahay in xubnaha xaqiisa aaday oo gato oo ballanqaad u sameeyay sidoo kale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ognahay in hadda heshiiskii madaxweynaha ay la soo galeen tiimka idinka tegay ay ku jireen 4 qodob oo waaweyn miyaanay idin muuqan in qodobadaas oo madaxweynuhu ka soo tanaasulay ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba ay dan ugu jirto midda su'aasha qaybta damaan aan ka bilaabayaa ma anaga nooma muuqato anaga iyo nimanka odayaasha hadda leedahay madaxweynaha heshiis la galeen waxaanu isla soo saaray heshiiskii warsaxaafadeedkii iyo qodobadii iyo mabaadi'dii ay madashu istaagtay oo iyagu nala ogolaayeen kaasi wuxuu ahaa in dastuurka madaxweynuhu iska bedeshay laga noqdo oo loo noqdo dastuurkii 2012 in la ilaaliyo maxaa la yiraahdaa federalismka dalka in la ilaaliyo in doorasho ay 4 sano mar dhacdo madaxweynaha 8 bilood u dhiman walina lama oga si doorasho u dhacayso waxaan ku sheegayaa inay wada hadaladii aan xukuumadda la galeynay aan ka fahamnay in la rabo waqti dheeraysi waxaan sheegnay in talada dalka iyo la wada yeesho oo midnimada dadka la ilaaliyo marka intaas oo dhan ayaan anagu u taaganahay qoladaasna markay nala joogeen ay nala qabeen su'aasha qaybteeda kore oo ah waxa tiri xubnaha madasha jooga lama gadan aniga jawaabteedu waa intaas waxaan ku sheegayaa kaliya ku adkaynayaa xubnaha madasha hadda ka tirsan in la isku dayay mid walba oo kamid ah la gorgoriyay lana gorgorin kari waayay oo aysan qiimo joogin sheekh madaxweynihii hore sheekh Shariif Xasan sheekh Shariif sheekh